الشعب الصومالي استمر في تصير الجمهورية الشعب الصومالي ينادون بمكان لكن هو والله عفوية الشعب كان شعب الشعب شعب شرطي الى اعترفنا شعب الصومالية الى التحية نماذج وعبريان زين وعبريان سيدنا سيدنا أي صحيح التحية يشترين يسيروا إيران صباحا ويقع بيان نقعوا أحد الآن نقعوا تنجيو يقوم إنت وشعب سيكون شعبنا شعب يدري بعدين يسيروا صباحا ini kan kan awal dia nah anda yang silasan tidak pernah saat nah dia pernah ada masih sahih balik lah ya assalamualaikum بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سقطان ورد الثلاثة وقع ذي عندي الذي ما عددي نفر ماجو من حدث الماضي وصدر حدث كل الجري بركة مضاعف مضاعف الله من رسول صديقه ولي خارج جنوب أحداث يوم قبصه أنتي وقبل من دارات من وقدعه عبارين نوافل أذكر أخذ أخلاق دين والدنيا واحد يستطيع ما أميه عربنا شعب سوف يقع بيئة يريد سوف يحل هذا تمكن من اللواتم سوف يحل اللواتم سوف يحل هذا كنتم سوف يحل كنتم سوف يحل هذا من أبغل سوف يحل قبل كذا كنت أقلنا وأنتوا فعلنا وعربنا إن نوجه وفعل كاس ماذا له أخلاق ماذا له وإذا أنت إن نوجه بدينا نعبرينه inaan ka xunnahay cid kasta waxaan u baaqaynaa inay gurigeeda ka soo dhaqaaqdo oo halka ugu ballamay mudaaharaadka beri loo ballamay dowladda Kalsoon iyo 2 kiiloomitir lambar 4 dadka ay isugu yimaadaan ay soo daataan waqtiin hadda ka hor inqilaab taangiyo wata lagu istaajin shacab istaajiyeen dowladda Turkiga waa la socotaan awooddu waa idinka iskale innaha uga baqinina annagana aan ku hogaaminayna نفر ما جو أورا إن جوا بوركاس ومقالة دجال كدعو وأي علات كدعو وأي رفشة كدعو خاصنا نجا جوابنا ظاهرات صباح يأود الشعب إن تصنع يدا واحد استكفي عن يدا واحد استكوين مركب حرمنا الشعب كده الشوق هنا يموجيان inay ka xun yihiin falkaas inay dareenkooda mudaaharaad muujiyaan annagana abaabulkeeda hadda aan u taagannahay oo aan ku jirno kuwa dibadda jira ka baxsan magaalada muqdisho ee cabiraan qaasatan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada inay soo saaraan istiidintiyo ay ku caddaynayaan falkaas inay xun yihiin shacabka qurbaha jooga jaaliyaha dibadda sidoo kale
ayagana inay muujiyaan waa inaan dhaqankan si wada jira ugu hortagnaa waa dad badan oo soomaaliyeed yaa maalinba maalin ka dambaysa baranaya ninka xilkiisa dhammaaday waxaa lagu baaqiyaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya gudawaad nin dhalinyaraha tahay mustaqbal nin dhalinyaraha oo mustaqbalha ku cayaarin mustaqbalkaada sharaftaada iyo karaamadaada iska casil xilka haddii aadan diidi karin amarka ninka muddadiisa mas-uuliyaddu waa la qaybsanaysa sidoo kale taliyaha ciidanka ee gorgora meesha wada iyo taliyaasha kale ee ciidanka howshaas loo diray iska casila haddaa sharaf iyo karaamadeeda waxaa lagu baaqayaa ciidanka xoogga dalka intiisa kale iyo kuwa nabadgudda iyo kuwa maaragtay taliska booliska inay diidaan amarka oo bixinayo ninka muddadiisa ay dhammaatay ay xirarka iska casilaan oo ay shacabkooda ilaaliyaan ay qayb ka noqdaan lagu baaqayaa taariikhdaa inuu xusi doonta nidaam dhacay oo galbaday oo waktigiisii dhammaaday waaye waa lainkula xisaabtamaya haddaad sharaf iyo karaamo yeelataan haddii aad dadkiinni iyo difaacdaan iyo xurmada dadkiinni iyo deegaankiinnana waa lagu karaamin doonaa haddii aad kusii socotaan ficilkaasna waxaa noqon doontaan dad gumoobay oo nacasnimo taariikhda ku galaa noqon doontaan iska casila diida amarka oo isiinaya ninka aan wax sharciyada iyo wax dadnimaha iyo wax akhlaaq aan haysanin ee ku jira filla soomaaliya ee sharci darrada ku jooga iska casila diida amarkiisa waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم وحي عاو كرحي مقالة المقدشة gaar ahaan hoteelka ay deganaayeen madaxweynayaashii hore iyo guddoomiyihii baarlamaanka hore waa wixii aan ka digaynay bilihii lasoo dhaafay wixii aan ka digaynay oo aan lahayn haddii la isku dayo in xukunka la isku dejiyo haddii aan la aqbalin in dalka doorasho loo sameeyahay ka dhaaf inay tegayso meelaan wanaagsanayn caawa waxaa muuqata intii amniga la sugi lahaa doorashadii laga shaqayn lahaa la weeraray mas-uuliyiin ka shaqaynayay in shacab soomaaliyeed ay dibadda u soo baxaan si ay u gutaan waajibkooda dastuuriga waxaan marka hore taxsiyeynaynaa dadkii ku geeriyooday waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo heladii ay ka geeriyoodaanna ilaahay samariyey inta dhaawacantayna aan leenahay ilaahay weerarkii caawa ka dhacay hoteelka waxa uu ahaa weerar qaawan oo lagu gardaqaystay laguna rabay lagu dhibaateeyo naftoodana dhibaato loogu geysto madaxda halkan wax kale oo lagu macnayn karo ma jiraan waana taariikh madow oo aan caawa taagan iyadoo muddaxileed hay-adaha dastuuriga dalka uu dhammaado madaxweynaha xilkiisu dhammaadana shaqadiisu keliya ay ahayd dalkan inuu doorasho galo ayaa caawa ummadda soomaaliyeed waxay aragtaa meesha aan taagan ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada soomaaliyeed shaqada idiin bannaan keliya waxa ay tahay inaad amniga subxaan qof soomaali ah weerar kuma qaadi kartaan ogaada hadda waxaad tihiin ciidan soomaaliyeed oo iyagu dalka mas-uulka ah maadaama hay-adihii dastuuriga ahaa oo ugu horeyso madaxtooyada xilkeedu sababta kaliftay caawa waxay tahay in lagu baaqay in shacabka soomaaliyeed inay isugu soo baxaan banaanbax nabadeed si ay ilaashadaan horumarka iyo dimuqraadiyadda dalkan uu gaaray loogana ilaaliyo in dib loogu celiyo wixii nabaday 30 sano aan soo dhaafnay iyo 20 sano oo ku horeysay si marka aan taas uga jawaab si khaladkii caawa ahaa in dhiig lagu daadiyo aan ugu jawaabno ilbaxnimo horumar dimuqraadiyad iyo iigsiga ay dadka soomaaliyeed rabaan waxaan shacabka soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho
وباقينا إني كل جود يسوع بحان شيء أنا مرة بقول عندي بعد عاود يعني موجنا الدرين كنا ونحققنا دل كنينا نوديكم عكران رواينا ومدة الصومالية وشيء isgoys ka maanta dalku uu taagan yahay qof walba mas'uuliyad ayaa ka saaran in laga samatabayo ma aqbalayno in dadka la aburiyo ma aqbalayno in dalka la afduub lagu haysto dalkan waa la wada leeyahay waxaana la ka rabaa kulligeen inaan difaacaasi si uu u dhaco qof walba oo muqdisho jooga yaani berri gurigeeda ku haray waa waajib ku saaran oo dastuuri ah وما تنتهي والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سومالي مالك سيد محمد تعسير لها ما تري أو كان عليه الناس في سومالية والناس في سومالية دارنا الحمد لله لكن قالوا اللي كان معنا هنا بدون توصل موضوع الشك فكر أيضا دارنا التصوير waxaa dhaca waxay yihiin weerar gaalmo odagu uu qordiyey labadii nin gacanaha ka qaatay iyo gudoomiye baarlamaanaad ku cusub wasaare casri inuu ku dilo dalku dhaqanka iyo dowladnimada dastuurka xuquuqda qaadanka sida iyo sharafta iyo haweenka dadka madaxda ka hadlaya laakiin waxaan ka hadlaa dhaqanka aadanaha شريف حسن شيخ هذا وهو هذا الشيء أولا من الأول أنك عارف بينه لكن حالة حكم فكرت مطروح ما شكل عين وحكى معها وويرا خارج جسته في عبد الرحمن وقاضي قناة لكن كيف شيء وكل ليس طبعا وضد صومالي إنه فوقي بعدي أهم نسعة وأنا أقول لكن ده أوصل لما أقول إنه يكفي ويرا qayb waa ka guuleysay qayb marka odayaasha raadinay ma aad taas oo leeyahay waxay dhacay asaas waxay u dhacay waxaa loo taagnaa manaabax lagu rabo doorashada baadilis iyo qodob dhibta farmaajo uu soo galo wana anaga may hada ka hor dimuqraadiya ka hadlaysa dalku ma dhisnay wadamada qaarkood tusaale wuxuu soo qaatay 20 sano inuu jiro sidiisa u joogo xilliga waa ka dhamaaday doorashooyinka la qaado markii la yiraahdo ama shuruucda la shirkadu maalka duulin jiray ama kor hor istaagi jiray ama doorasho aan dhici karin dadku sheegay intii codeysa saareen markay soo dhamaadeen oo dadkii asaga inay soo taagaan ay noqoto ayay wuxuu arkay dadka ku naadinay halayso sabtarta halaka in markaan xisaabkiisa sababta keentay taas maxaa habboon waxa habboon inta la ciidan doonto la isticmaalay anaga waxaan rabaa dadkeena soo baxaa dadkeena Soomaalida gaar ahaan kuwa bulsho joogtay saddex qolob saddex waa kale reer muqdisho waxaan ka rabnaa inay soo baxaan oo ay ka mudaharaadaan waayo dhibaatada meesha ay taagan tahay inay kasii darto maahan haddii loo dalbamo ka dambayso maanta haddaad adigu qaadato dowladnimada haddaad qaadato wadkaaga noo qaada adig kale baalanka dashaada saddexaadida annaga carruurteeda haddaad dhimato midadadu mar bay nolosha dhaantay dhadhamiya mar bay kaa yihiin darafta xaala in dharbaaxa quuda dugsaday dhaqayadeed maali dashaadii saddexaadida maanta haddaad soo bixinin carruurtiina iyo carruurtaysi dhaqaaqaad u qaadaysaan
maalinkaas ninka kursiga si uun ku yimaado kow doonan inuu dilo kow doonan inuu ceydiyo dimuqraadiyadda aysan meesha ka dhicin dalkuna kala gogo ay isdilaan dadka ayaa ka dhanna marka waxaan rabnaa xalku waxa uu yahay inaad soo baxdaan dadka soomaaliyeed xamar iyo xaydaabkiisa dadku joogo ku soo aruur meesha magaalada waxa dilaya waxa la dalada afxumo ku hadlaya laakiin inuu asaguna meel yahay ummadda ay baan tahay in la tusayo qolada labaad ee aan hadlayo waa ciidamada waa yaabana taliyaasha ciidanka sow ma og dil aan leeyahay markaabaan dil inaan sharci noqonin inaanay mas-uuliyadda ka daynin qofka bani aadamka waxaa laga yaabaa hal maalin oo looga baahan yahay hal maalin taliyada waayo dadku ma sino taliya xoogga dalka soomaaliya taliya xoogga dalka soomaaliya xataa marka soomaaliya jirto soomaaliya waa markay waa markay ciidankaa wuxuu dadka ka adagyahay ciidamada dadka ka adagyahay intii heshiis leeyahay ciidanka waa in laga ilaaliyo dagaal sokeeye xalayta dagaal sokeeye adigu ka celi qalada saddexaad ee rabaa waxay mas-uuliyiinta siyaasadda waa dowladda ka tirsan waxaan kula talin lahaa inaadan goobjoog u noqonin dalka soomaaliya maalinka goobjooga u noqonina maalinka dastuurka ka tanaasulaaya shuruucda dalka saddexdaa qolada saddexaad ee shacabku wuxuu ka tirsan yahay shacabka markaas ay ka tirsan taliyaasha la tirsanyiin waa maamul goboleedyada dalka ka dhisan waxaan leenahay maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin horora haddii uu madaxdii hore maagay ninkana waa idin maayi kariyaa la iskuma aamini karo goob nabada oo dalka dadka isugu yimaadiin baa loo baahan yahay ninka inuu hor fadhiista rabo ama muqdisho kula isticmaalo rabo ha ogaado kii xilka ku wareejiya markuu hormayn waayo oo gaaday adigana wuxuu ku reebi kara marka shir loogu yimaado iyo oda soomaalida lasoo hor fadhiisto caawa wixii ka dambeeya ma jiraan waa mahadsantii Hello.